بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بكر محمد الحو إن شاء الله تعالى عشر كينان مانتا أيا وحو قسين دونا أما إنو كشريح دونا وريق يبتكا ليدي وريق ليدي إنو كشريحي سيدو كالو حين كشريح دونا بتكا ليدي وقريم حين شريحينا وريق ليديغا tusaale horta wareeg wuxuu noqonayaa hadaynu soo qaadno kaba soo qabo halkaas aan ku calaamadayno bartaas aan sumada mariyay white ka ah hadii aad ka soo tagto oo halkaas soo raacdo sida u aragto marka halkaas sida ugu soo socoto oo sida ugu soo socoto geesaha sidaas ugu socoto markaad ku laabato isla barti aad ka soo tagtay inta aad jartay ama fogaanta aad soo martay guud ahaan markii la isu geeyo wixii ka soo baxo waxa lagu magacaabayaa wareeg. waxa soo haray bedku wuxuu noqonayaa intaas aan hadda soo maray ee aan falaartaas soo marsiiyay inta u dhaxaysa ee gudaha ku jirto ama inta ay soo oodaan inta ay soo xiraan ayaa idina waxaan ku magacaabaynaa bedka leydiga iyo wareegga leydiga. waxaan rabaa marka inaan wax yar la sii fahamno oo ah waxaan ognahay wareegga leydiga markii laga hadlay halkaas hoose waxayna u qoran in wareegga leydigu leeyahay dherer lagu dhuftay بلع halkaas lagu dhuftay ma aha lagu daray balac dherer calaamadaas waxa weey lagu daray balac dherer lagu daray balac dhererkii iyo balaci ayaa la isku daray markii la isku daro laba lagu dhifanaya labadaasi laga dhufanay waxay ka imaanaysaa tusaale dhinaca kore ila eg dhererka kore iyo dhererka hoose leydigu dhinaca uu dheer yahay afar dhinac buu leeyahay laba dhinac kasta iska soo horjeedo waa isku mid ah labada dhinac uu dheer yahay dherer baa lagu magacaabayaa labada dhinac kale uu gaabayahna balac baa lagu magacaabayaa. hadda marka labadan dherer ee aan cusumidiyay dhererkaas kore iyo dhererka hoose isku mid waa isku mid maadaama ay isku mid yihiin laba dhererna ay yihiin ayaa halkaas waxa la soo qaadanayaa labo. sidoo kale markaynu eegno dhinaca kale dhinacan ira gaaban waxaan dhahnaa balaciye dhinacan waxa la eg dhinaca maadaama labadan dhinac igana isla eg yihiin dhinacida gaabnaana ay yihiin iyaga waxa loo bixinayaa balac. marka balaci yana waa labo dhereradii yana waa labo guud ahaan bedka leydiga marka waxaa lagu helayaa labadii dhererka iyo labadii balac ahaa banaanka loo saaray deeta ayaa dhererkii oo nu soo gaabanayno dha waxaanu ku daraynaa balaci oo nu soo gaabanayno ba. intaas waa qaacidada guud waa haddaan si kale usii sharaxna marka maadaama halkaas aan ka soo bilawnay cabir halkaas aynu ka soo bilawno halkaas markaynu ka soo bilawno oo halkaas soo socono halkaas markaynu imaadno hal dherer baynu jarnay halka markaan ku darno hal balac dhinacana dhererkii kale dhinacana balaci kale saas daradeed waxaynu si kale u dhihi karnaa wareegga leydiga waxaa lagu helaa dhererka koobaad lagu daray balac koobaad lagu daray dhererka labaad lagu daray balac labaad. qaacidadaas ma isticmaali karnaa yani anagoo tan marka qaacidalka aan soo ku soo qorno waxa weey kaliya inta baa la isku soo daray laba dherer iyo laba balac maadaama yihiin labadii banaanka loo saaray dhererkii balacna waa la isku daray warku intaas isku imaanaya. marka wareegga leydi waxaan leenahay waxaa lagu helayaa dhererka iyo balaca oo la isku daray oo laba lagu dhiftay. ima markaad rabtaan si kale u sheegto
dhererka iyo ballaca hadana dhererka iyo ballaca si iskaga soo horsiis ugu xidhan dhererka ka bilaw lagu daro ballaca lagu daro dhererka lagu daro ballaca waxa soo haray bedka asagu alqaada si uu leeyahay waa dherer iyo lagu dhufto ballac waxa fiirinaysaa qiimaha oo haysto dhererka waxaad ku dhufanaysaa qiimaha ballaca kadib waxa ku soo bixi doona bedka guud ama bedka leedigaas ay ku soo bixi doona waxaana weeye halbeeguna wuxuu noqon doonaa markasta halbeeg laba jibaar aslan markaad bedka hadlayso bedku waa halbeeg laba jibaar waxaan uga jeedaa ama waa sentimeter laba jibaar ama waa meter laba jibaar ama waa kilometer laba jibaar tabcan waa halbeeg lagu cabir dhererka ay ku noqon doonaa askaasad laba jibaar doontaa laakiin wareegu halbeegiisu maadaama kaliya masaafo ama fogaan dherer la cabiray halbeega ay wataan bisad si doontaa doo alla idin hayo intaas waa inta marka la fahamto kadib labada qaacido markaan dhaafno kadib waxaan ugu gudbaynaa bal tusaalahan wuxuu leeyahay tusaalaha koobaad weeye laba tusaale ka sharax doona haddii la idmayo casharka kane raadi wareega iyo bedka leedi dhererkiisu yahay 6 cm haddii ballacu yahay 5 cm dhererka leedi waan raadinaynaa raadi wareega iyo bedka labadaba waan raadinaynaa balse waxaan ku bilaabaynaa bal inaan soo raadino wareega waxaan iskaga soo qaadanayaa xarafkaas w ah wareega hadda waxaan soo dhahnay waxa lagu helaa labo bilfur dherer oo lagu daray ballac waxaan leenahay marka intaas waa qaacidadii dhererka horta maxaan haysanaa dhererka waxa gifina aan haysanaa 6 cm saddex waxaan leenahay 6 cm ballacana maxaa gifina aan haysanaa ballacana waxaan haysanaa maxaan ku raahday 5 cm 5 cm intaas marka waxaan leenahay wareegga qaacidadiisa maadaama ay tahay wareegu maadaama ay tahay laba lagu dhufto dherer lagu daro ballac waxaan leenahay labo bilfur dhererka waxaan ku bedelaynaa 6 cm lagu daraan leenahay ballacana waxaan ku bedelaynaa 5 cm deeta ayaan leenahay wareegu wuxuu leeyahay labo bilfur 6 ku dar 5 waxa weeye 11 halbeega centimeter waxba ka soo qaado marka wareegu wuxuu noqonayaa leenahay laba lagu dhuftay 11 waa 22 cm marka wareegu sidaas aynu ku soo saarina waxaan rabaa marka hadii tii dayana isticmaalna ka waran dherer iyo ballac hadana dherer iyo ballac waad samayn kartaa 6 cm waxa ku daraysaa 5 cm waxa ku daraysaa 6 cm waxa ku daraysaa 5 cm laakiin intaas waxa ka fudud markasta ilaa number 3 oo noqon karaan inaad qaacida toos u isticmaasho qaacida ay yartaa kaga haboon isla hadana waxaan raadinaynaa bedki waxaan ku heli doonaa baan dhahnay haday bedka leediga waxa lagu helaa inuu dhahnay bed saasan u qoranaynaa dhererka oo lagu dhuftay maxay ballac waxaan leenahay marka dhererku wuxuu ahaa 6 cm lagu dhuftay inuu leenahay ballacana wuxuu ahaa 5 cm marka 6 marka lagu dhufto 5 waa 30 cm maadaama 2 cm isku dhacsan yihiin waxa soo baxay centimeter laba jibaaran markasta marka bedku halbeegiisu waxa weeye waa centimeter laba jibaaran therefore marka waxaan leenahay bedku wuxuu leeyahay 30 centimeter oo laba jibaaran baad leedahay laba jibaaran wuxuu ka imaanayaa waa centimeter lagu dhufto centimeter okay taasi waa intaas tusaalaha xiga hadayna markaan isla eegno bal wuxuu noqonayaa tusaale labaad weeye hadii dhererka leedi uu yahay 20 cm balacuna yahay 5 cm raadi wareega iyo bedka leediga sidoo kale waxaanu sameynaynaa waxaanu leenahay maxaan haysanaa bedka maxaan haysanaa wajiga dhererka marka waxaan haysanaa waa gifanka waxana la sii weeye waxa weeye 20 cm halka balacu uu yahay 10 iyo 5 cm su'aasha marka waxa weeye wareegu muxuu leeyahay sidoo kale bedkuna muxuu leeyahay ugu horreyn waxaanu ka shaqeynaynaa su'aasha koobaad ee ah wareega waxaan leenahay wareega waxa lagu helaa labo bilfur dherer oo lagu daray ballac marka wareegu wuxuu leeyahay leenahay labo dhererka waxaan haysanaa 20 cm lagu daraan leenahay ballacuna waxa weeye 15 cm saastradid wareegu wuxuu noqonayaa leenahay labo bilfur 20 lagu daro 15 waa 35 cm marka ugu dambeyn wareegu waxa soo baxaya 70 ilaa 35 ku dhifan laba weeye 70 cm 70
centimeter. taasi waa intaas. haddii lagu diro marka isla bedkii waxaanu leenahay waxaynu haysanaa dhererkii waa gifinkii oo dhererkii waa gifin oo dhererka waxaana la siiyey inuu leegyahay 20 centimeter halka ballacu uu leegyahay 15 centimeter. waxaanu leenahay marka bedka maxaa lagu helaa? bedka waxaa lagu helaa dherer lagu dhuftay ballac. daba waxaan leenahay dhererka waxaan ku bedelaynaa 20 centimeter lagu dhuftaynu leenahay ballaca oo ah 15 centimeter. saas daraadeed bedku marka wuxuu noqonayaa ama uu leekaanayaa 20 15 ku dhufo waa 300 weyno 20 lagu dhuftay 15 waa 300 centimeter ku dhufo centimeterna waa centimeter oo laba jibaan. saas daraadeed qiimaha bedkuna wuxuu noqonayaa 300 centimeter laba jibaan. waxaan rabaa inaan wax kugu sii diro halkaas oo ah sometimes waxa laga yaabaa in bedka lagu siiyo dhererkan lagu siiyo ballaca lagu diro marka waxa dhici karta in lagu siiyo bedki. tusaalahan waxaa lagu yiri bedka lady ayaa waxa uu leeyahay 20 centimeter oo laba jibaaran ballacina wuxuu leeyahay baa lagu yiri 4 centimeter. tusaalahan marka soo raadi baa lagu yiri dhererka ladygaas uu leeyahay soo har. waa su'aal markaas iman karta weey. waxaad soo qoranaysaa qaacidadii waxaad leedahay bedka maxaa lagu helayay? bedka waxaa lagu helayay dherer oo lagu dhuftay maxay ballac. waxaan leeyahay bedka maxaa la siiyay 20 oo ku bedelanayaa 20 centimeter laba jibaaran. waxay leegtaan leenahay dhererka waa la ii diray Soomaa waxa dherer soo qoranayaa lagu daraan leenahay ballac maxaa la siiyay lagu dhuftaan leenahay ballac maxaa la siiyay 4 centimeter. saas daraadeed waxaan dhihi doonaa marka dhererka maxaa ku dhacsan ballac Soomaa ballac qiimihiisa maxaa weeye waa 4 centimeter. si aan u helno marka dhererka dhinaca waxaan u qaybinaa 4 centimeter dhinacana waxaan u qaybinaa asagana 4 centimeter afarta isla saar marka dhererkii waxaa ku soo haraya ama ku soo bixi doona 20 hadii loo qaybiyo 4 waa 5 sidoo kale centimeter laba jibaaranka ayaa waxa kala baxay centimeterkaas waxaa ku soo haraya marka dhererkan uu leeyahay 5 centimeter. wali waxaa dhici karta in haddana lagu siiyo tan ku soo gabagabay doonaayo in lagu siiyo wareega laydiga ka soo qaad wareega laydi waxaad ka soo qabataa wareega laydi ayaa waxaa lagu siiyey number baynu ka soo qaadaynaa. tusaale ahaanba inuu leeyahay 30 centimeter. tusaale ahaan wareega laydi waxaa lagu yiri waa 30 centimeter. haddii dhererku uu yahay 8 centimeter haddii dhererku uu yahay 8 centimeter soo saar ballaca. tusaalahan sidaas baa lagu diray. markaan dherer lagu dirayo marka ballac lagu dirayo isku shaqo weeye qaabka loo shaqeynayo waa isaga mid waaye. marka waxaan leenahay wararta wareega laydi maxaa lagu helaa? wareega laydi waxaa lagu helaa 2 bilfur dhererka oo lagu daray ballaca. waxaan leenahay wareega maxaana la siiyay 30 centimeter. intaas waxay leegtaan leenahay 2 bilfur dhererkii waa 8 centimeter Soomaa dhererkii waxa weeye waa 8 centimeter lagu daray ballac maadaama ballac naga maqan yahay baadiyana soo qoranayna. marka waxaan leenahay 30 centimeter ayaa waxay leegtahay labada gudaha ku dhif marka waa 16 centimeter lagu daray labada sidoo kale ballac way ku dhacaysaa marka laba lagu dhifto ballac bay noqonaysaa. يعني wareega markii wareega lagu siiyay ballaca dhererka lagu diro labada banaanka uga taalo waad ku dhufanaysaa gudaha. marka waxaan leenahay 16 centimeter ee ku darsan labadan ballaca ah laba ballac ayaan xagga iska wadajinina. marka waxay noqonaysaa 30 centimeter laga jaray ay calaamad soo maraysaa oo hadda calaamad halka minus plus ku joogtaa dhinac marka minus ku maraysaa laga jaray 16 centimeter. intaas waxay leegtaan leenahay laba ballac ayo xaggan soo martay. marka 30 waxaan ka tirinaa 16 waxaa soo harayo 14 centimeter. intaas ayaa waxay leegtaan leenahay laba lagu dhufto ballac ama laba 2b minus waa laba lagu dhufto ballac weeye. ugu dambeyn marka si aan u helno ballaca waxaan leenahay ballaca maxaa ku dhacsan labo dhinacana u qaybi dhinacana u qayb marka laba isla saar. ugu dambeyn ballaca marka wuxuu leeyahay 7 centimeter. wabillahi tawfiiq. marka
laydiga marka guud ahaan inkastoo astaamihiisa iyo waxyaabaha sidaanan waxba ka sheegin oo markaas kuwaas cashar kale u baahan yihiin haddana haddii lagu diro bedka haddii lagu diro balaca haddii bedka iyo dhar lagu soo balac lagu diro ama bedka iyo lagu siiyo maxaan ku yiraahdaa dharka balac lagu diro ama wareega iyo dhar lagu soo balac lagu diro ama wareega iyo dhar lagu soo balac lagu diro dhamaantood tusaalooyinkan aad tusaale uga dhigan doontaan haddii alla idmo hayo marka qaybtan insha Allah ta'ala intaas ayaan ku soo koobaya haddii alla yiraahdo qaybaha inoo xiga ay noqon doontaa wabillahi tawfiiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.